wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab weerar ku bilowday qaraxyo ay ku qaadeen saldhig ciidanka dawladdu ay ku leeyihiin deegaanka Sabiib ee hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. deegaanka Sabiib ee hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa degan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan Commandos-ka Gorgor iyo ururka 143 ee guutada 14 Oktoobar kuwaas oo la sheegay inay ka hortageen weerarka ay soo qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. weerarka qaraxyada ku bilowday kadib waxaa xigay dagaal toos ah oo u dhaxeeyay ciidanka dawladda iyo sidoo kale maleeshiyaadka Al-Shabaab. ciidamada dawladda ayaa waxaa la soo warinayaa in khasaare xooggan ay gaarsiiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellada Hoose. deegaanka Sabiib weli waxaa ka soconaya dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. lama oga ilaa hadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkan ka soconaya deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellada Hoose, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in maleeshiyaad badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee weerar ku qaaday halkaas khasaare xooggan la gaarsiiyay. ma jirto weli wax hor oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo ku aadan inay faahfaahin ka bixiyaan khasaaraha ka dhashay dagaalka ka soconaya deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellada Hoose.